madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay qalinjabinta dufcadii sagaalaad ee jaamacadda Burco oo tiradoodu dhameed 242 arday. Madaxweynaha Somaliland ka qaybgalka munaasabadda qalinjabinta ah waxa ku wehelinaya xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, maamulka jaamacadda Burco, xildhibaano iyo marti sharaf tiro badan. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salebaan Dirir Cabdi, gudoomiyaha guddida sare ee jaamacadda Burco Maxamuud Aadan Dheri iyo saraakiil kale oo ka tirsan jaamacadda Burco ayaa ka waramay maraaxilkii jaamacadda Burco ay soo martay iyo guulaha ay hadda gaadhay. madaxweyne haddii aan ku xusuusiyo ardayda halkan fadhida waa arday nasiib sanadkan maanta ah wax la nasiibihi waa mid madaxweynihii qaranka oo uga soo safray meel aad iyo aad u fog oo aan runtii qiimeynayno. waxa labaad oo ay nasiib kaga duwan yihiin colalkii hore oo dhan 10 arday oo ka mid ah 10ka maanta ardayda maanta qalin jabinaysa 241 ah waxay heleen deeq waxbarasho oo masterisa oo ay u heleen dalka Itoobiya. madaxweynihii uu nala fadhiyo iyo wasiiradiisii iyo guurtidii iyo dadweynihii iyo salaadiintiiba Allahu akbar aad baan u faraxsanahay. togdheer aad bay u faraxsantahay, burcana aad bay u faraxsantahay, waana ku sugayna baryahan oo dhanba. maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo wasiirka waxbarashada iyo sayniska Somaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa dhankooda hambalyo u diray ardayda maanta qalin jabinaysa. Professorka warkiisa magaalada aad buu sheegay waa magaalada caynka intii layga raacay barigiidu hadda inta waa ka yaray anu kelmad baan saaga professorku waa sii badiyay. Congratulations mar labaad ardayda waxaan leenahay gobolka degmada qaranka inta buu idin sugaya oo idin ducaynaa kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa aad barateen ha idin barakeeyo. waxaan kala dardaarmayaa oo kaliya inaanay cilmiga la tahriibin oo tacabka la soo galiyay ee waalid iyo qaran iyo jaamacad iyo cid walba gelisay inaan la tahriibin ee uu noqdo cilmi loogu shaqeeyo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. dawladdan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayaa waxay aad ugu dadaalaysaa in waxbarashada hoose la tayeeyo oo iskuulada dawliga ah ee dadweynuhu leeyihiin aad iyo aad loo gacan qabto oo la bedelo siday imika yihiin iyo siday wax u dhigaan. waxa ugu horeeya in macallimiin wax taqaana la helo. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo madasha soo gunaanaday ayaa boogaadiyay ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Burco. ardayda qalin jabinaysa iyo waalidkooda iyo macallimiintooda iyo Burco oo dhan iyo dadka ku nool iyo odayaashii aasaasay iyo kuwii gacanta ka geystay jaamacadda dhismaheeda dhammaantood maanta waxa u farxada in tacabka ay soo tabceen midhihiisa maanta ay go'ayaan oo 242 jaamici oo qaranka aqoon soo bartay oo mustaqbalkii dalka noqday oo meelo badan wax ka dari doono haddii eeba idmo inay maanta jaamacadii ka baxayaan waa guul aynu wada gaadhay dhammaanteen iyo qaran ahaanba. waayo Burco haddii loo qoray suugaan talo qarannimo difaac qaran waxgarad intaaba haddii lagula tartay maayo waxa laga rabaa Burcana waxa loo xidhi dhibaatooyin dalka jira inay ka noqoto inay xaliso oo aan la tartamin taana idin kala sugay. gabagabadii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shahaadooyinkii guddoonsiiyay ardayda maanta qalin jabinaysa. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco.